maanta qofka ogaadeen wuxuu ku leeyahay gabar baa dhaanta gabar anigu waxaan leeyahay gabdhaha ayaan sharafta looga ciyaareen xamse xitaa gabar waa ka liitaa sharaf bay marka ummadda Soomaaliyeed u tahay aad baan ugu faraxsanahay in ogaadeen ay garteen xamse cabdi barre inuu jeebka xasan sheekh ku jiro uu yahay nin aanan daaroodna waxba u qaban karin ogaadeen warkeed badaa weligeed ma dhicin ra'iisul wasaare jooga madaxtooyada ee aqbalay reerkaaga ha lagu duulo xamse ko inta aynu ra'iisul wasaare arkaynay ama ha ka soo jeedo ma jirteen ama ha ka soo jeedo ma reexaan ama dhulbahanta ha ka soo jeedo qabiil kastoo daarooda hadduu ra'iisul wasaare dalka ka noqdo weligeed ma dhicin ra'iisul wasaare ciidanka dowladda ku hogaaminaya reerkiisa in lagu baabi'iyo warninku dameer xuma waxa kaloo intaa ku sii dheer ilaa iyo hadda waa isla saxayay dadka qaar waxay yiraahdeen wardiyaaneeda laga baaro xamza ogaadeen dhalada maba ahan maya dabaal waa ka dhalan kara waa sax waay qofka Soomaaliga dabaal la dhalan kara geesiya la dhalan kara fulaya la dhalan kara reerka laakiin sumcadooda iyo sharaftooda maanta koray u qaadeeno marba hadayba garteen inuu yahay nin marxuuma oo waxba ahayn waa ilaahay mahdi hadii shalay laga dhaadhiciyo xamza waa haliyay lama rabade nin baahano lacag yar oo gurnaa oo madaxtooyada looga soo tuuro oo ka hadashinaysa ma marka dhala tahay iimaan baad leedahay laangaab liita marka taana qof lacag lagu bedeli kara tahay marba hadaad aragtaan qof irsaaqad maanta lagu rogi karo hadba dhinac looga dhigi karo qofkaasi qof dhalada ma geesinimadu waa inaad runta sheegtaa dhalinyaradii ogaadeen ee shalay baraha bulshada ka difaaci jiray xamse cabdi barre maanta waxay leeyihiin gabar caadale ayaa dhaanta halkaas horta waxaa igaga cad in laga adkaaday kooxda dabajideed war ogaadeen maxaa iyo maya waa yaqaanaan nacala shaydaan ku yaalay waa niman yaqaana dee meesha loo jihaysanayo iyo halka loo socdo rag yaqaano waaye laakiin dadka qaar baa ku lunsan oo waxay u maleeyaan ogaadeen ma fahansanaba runta maanta in la dhadhamiyo muhiim bay inoo tahay dagaalkan axmed madoobe lala galana wallaahi faa'iido noo ah in axmed looga soo duulo madaxtooyada faa'iiday noo ahayd maxaa yeelay dad anaga hurdayay ogaadeen aan hurdada ka kici waayo war ogaadeen oo toosa war ogaadeen oo runta ogaada maya madaxweyne xasan sheekh maxamed waa libaax wiilka xamse cabdi barraana waa haliyay waaye ogaadeen yaa wax ka dhaadhici kara laakiin hadda alxamdulillah waxaa ii caddaatay ii muuqata jawtaa ka duwan kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada janalka runta iyo xaqiiqda kusoo dhawaada janalka ummadda Soomaaliyeed halkan waa YouTube channel aniga aan leeyahay sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed aan ugu adeegaa fikir ma la gabadaa xaqiiqda ma qariya maya magaalo kasta oo dhibaato ka jirto aniga la dhashay waxaan ahay Jubbaland waxaan ahay reer Kismaayo ma aqbalayo dulmi ku socda sida awgeed fadlan daawade meeshan qabiil looga buubuuniyo ee xaqiiqda lagu sheegaa cid walba laga gardaran yahayna waa loogu xiliyaa soo dhawaada dhamaantiin qodobada barnaamijka aad ku daawan doonto oo aan turxan bixiyay badankood waxaan ku eegi doonaa xamse iyo ogaadeen waa ilaahay mahdi ma jarteen waxay hore noogu sheegay dadkaas dad aqli badan waay ma jarteen dad aqli badan waay inta aadan adiga balaayada arag ma jarteenku balaayada way arkaan dhammaan beelaha daaroodna indhaha ay ku socdaan rabaa ma jarteen waxay arkaan haddaad iska indha tirto waa hubaal 10 maalmood kadib oo arkaysaa markaasaad leedahay shalay ma jarteen waa naga saxnaayeen ma jarteen shalay sharafay laayeen waa ku xadgudubnay maanta waxaad ka dhahan kartaan ma jarteen waxa ay noo sheegi jireen xamse inuu yahay marxuum ogaadeen badan ka xanaaqin jiray dhiikada ku dhici jiray wallahi ma jarteen kuwa masiirsan yihiin ra'iisul wasaare noo diidan yihiin arma jarteen waxay la wallahi billahi ta'ala wallahi walaalahin baatihin maxaan idinkaga diidaynaa ra'iisul wasaare waa u qalantaan war weligan xitaa iska haysta laakiin ninkan waa marxuum war mana matalo maya masayray qabaan ma jartaanku ogaadeen ay u diidan yihiin inay ra'iisul wasaare helaan ogaadeenkii sidaa lahaa labadii sano ugu dambeeyay labadii sano ee aynu soo dhaafnay ogaadeenka 24 saac meel kasta la taagnaa xamse waa haliyay maanta waxay taagan yihiin subxaanaka yaa cadiim gabar caadale ayaa dhaanta ra'iisul wasaaraha dagaalka carruurta meesha ku korsadee doqonka ee reerkiisii la weerarayo
waan ku faraxsanahay ku haya meesha aniga ii fadhiya horta ka intaan meesha geysan lahayn gabadh inaan geysanahay gabadh caadale inaan halka geysano ayna matasho dharku u dhaqa xasan buu dharka u dhaqa jikada ugu jira marxuum dhalay oo reerkiisa lagu weerarayo waryaa ma sheerteen markay lahaayeen waa marxuum aan ka diidanaynayn hooyadin baa marxuuma ma sheerteen ku xagee wax shaakeen ma wax ma qabyaalad baan naqaaday burwaan arki weynay waa marxuum may wallahi uu nool yahay baan leenahay ma dhiman uu nool yahay soo ka hadlaya may wallahi waa marxuum ba ma sheerteen ku dhaaranaya saan leenahay may wallahi uu nool yahay xamse waa marxuum dhalay weeyniyo waa doqon dhalay ninka kaliya ee maanta reerkiisii lagu weerarayo weeyaan reerkiisii baa lagu weeraraya ma wiilkaas xildhibaanka ah ee reer cabdille ee reer cali wanaag ya ma wiilka yarka ah wuxuu gartay uu garan waayay xasan firimbi wuxuu gartay askarigu maanta u feedhay mid abgaala oo afka muufa ku wata unukaalada ku hayo sabkii xidhay ميدين كاله الكوت سبي اسبتال كالو دري هذا اللي باكاس بيرو سودو هذا اللي باكاس تابتان نيروبي كبلابانيسا سياسي شعب وحقرت ان سي ام odayaal dhalinyaro si guud ogaadeen mowqifkooda waa bedeleen hurdadii ka tooseen hadda maskaxdooda waxa geli la nin dhanoo magaca uu ku fadhiyo kursiga uu yahay 4.5 ku matalaya daarood ee aqbalaya daaroodan soo afjaraya maskaxda ogaadeen waa ka weynaatay waxay kaloo la sii yaabeen ogaadeenan kismaayo xoog uga saarayna markaasuu leeyahay anaa idin horkacaya anaa idin hortaagan markasta markaad madaxtooyada wacdo wuxuu ra'iisul wasaaraha lagaga sheegaa anaa ugu dheer anaa dagaalka horkacaya isoo dabagala لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalkay inaad disho ayaan kaa kugu garab istaagaya soo daba galnay ka taagan ka waran taariikh xumo ayuu reerkii sharafta lahaa u soo jeeday fol xumo ayuu reerkii u soo jeeday maanta weligeed lama arag ra'iisul wasaare ma jarteen aan arki jirnay nacla sheedan ku yaalay ii sheegi kartaan ra'iisul wasaare aqbalay halkaad ka soo jeedaan ku duulayaayna keen ma jiro kaana walaalka ila soo dilaa xataa hawiyihii ra'iisul wasaarnimadii soo maray xitaa noocan laguma arki jirin ma xasan cali khayraa aqbalay murasado ila soo dil kaalay murasadan soo dilaynaa intuu farmaajo yiri farmaajo kama suurtoodo laakiin hadduu farmaajo dhihi lahaa madaxweyne farmaajan ahay murasadan soo dilaa حسن علي غيرنا كان هدو هرمود ونقضى كون هور استاجلا وهرسو الله ودي لنا كان مرسلا صلى الله عليه وسلم انا ديار نو معايا كما صورته حسن علي غير وحو نقضي رئيس الوزراء وضعيف سنه وحو نقضي رئيس الوزراء ونعسنا وحو نقضي نكي وليتي ابد مدحتويه الصوماليه ما انت ogaadeen dal iyo dibadda way isku raaceen guusha aan gaarnay inaan ogaadeen hurdada ka toorsano wallahi guulka weyn ma laha maanta siyaasiyiintii shacabkii mahad celinta wallahi teleefonkaygu waa buuxsan waa mahadsan tahay tooshka meeshaad noogu iftiimisay waa wada aragnay marxuumku faa'iida male rag iyo dumar in dheergarad siyaasiyiin qof kasta maanta hurdadu ka toosan markaan ku leeyahay axmed madoobe waa badbaadiyihii qaranka markaan ku leeyahay tanay qayb ka tahay inuu maanta hurdadii ka toosiyey dadkii Soomaaliyeed gaar ahaan beesha ogaadeen axmed horta waa ku mahadsan tahay meesha aanu maanta taaganahayna waa natiijo kama dambayna war waad guuleysanaysaa war waa idinka hubaa axmed inuu guuleysanayo halkaan ku fadhiya ama gaal u dacwooda ama kenyaatiga jilbaha qabsada ama lacag bixiya waan hubaa على مسار قروح بدن oo Soomaaliyeed iyo Kismaayo laga xigin ayaa la isugu tagaya adiga idaawanaya waxaan ka codsanayaa maalinta على مسار ka fasax degdeg inaad qaadato Kismaayo tagto Kismaayo ku wada raaxaysan doonaa halkaasan ku baashaalay doonaa halkaasan ku dalxiisi doonaa waxaana waa laga adkaanaya aniga ogaadeen aqaan haday soo jeestaan wallahi inaan la kala harayn waa garanaya dal iyo dibadba waan aqaan marka insha Allah أحمد محمد سلام وقوليستا
xamse cambaare oo la wada arkay waa guulo waaweyn waay guulo waaweyn waay waana ilaahay mahadii boorso lacag oo nairobi la keeno oo dadka loo qaybinayana waxba kama bedeli karto mowqifka ogaadeen laba nin oo boorso la taagan nairobi oo midna uu la dhashay xamse cabdi barre iyo mid seedigi ah sumcad ogaadeenna waxba uma dhimi karaan axmed madoobana waxba kama qaadi karaan lacagaha marka nairobi lagu qaadanayo waxaan leeyahay lacag waa qaadasho qaata lacagta sharafta iyo sumcadda jubbalandna waa mid waana looga adkaan doonaa xamse cambaare iyo madaxweynihiisa waan hubaa taas wixii kusoo kordhaa xaaladaha kala duwan guuxa siyaasadda intaba waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa balwaan oo idinle meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo